السلام عليكم كسر وهذا مقال كيشنات نقدو إنه شركة أتيورا شركة أتيورا هدي أنا دوحفة فهنا كهينين هتقول لها بنكرتها channel كنا مقالة أفرتها هي هراء أنا صوت دوبني هيتكسر دعوان كرتها أتيورا واحد هاي واحد قبضي سيدنا لو ما القشطه مقالكم إحنا نجاهل دونا سيدا العقل وقلب حو أتيورا step by step نجاهل دونا سيدا كلا واحد كسر بيري كرتها تليجرام جروب linkiisa description-ka idin soo dhigi doono Somali Atiyora team halkaas oo qof kale oo raba in wax laga caawiyo su'aalaha ku soo gudbisto kadibna looga jawaabo maanta waxaan withdrawal ka bilaabaynaa halkan shaashadaada marka timaadid halka balance haday lacag kugu jirto waxaad sameynaysaa withdrawal oo sameyn kartaa sidoo kale waxay ku xidhan tahay habka aad maal gashatay in daily loogala bixi karo lacagta marka hababkana waa soo sharaxnay wad ku laaban kartaa muuqaalada aan soo duubnay shaashadaada marka timaadid halka withdrawal qoran tahay ayaad click siinaysaa markaad click siisid waxa ku soo baxaysa dashboard sidaan u eg oo ay ku taalo hababka dhammaan lacagaha loogala baxo dhammaantood way kala duwan yihiin intaas oo habaad lacag uga bixi kartaa oo cryptocurrency kala duwan laakiin waxaan kala baxaynaa USDT gaar ahaan waxaan kala baxaynaa network-kan loo yaqaan TRC20 oo fiigiisuna aad u jaban yahay markii horena ay deposit ku soo sameynay way kala duwan yihiin lacagaha laga bixi karo iminka USDT TRC20 wax laga bixi karaa 5 USDT baa laga bixi karaa ayaa ugu yar lacagaha laga baxo tan kale ee USDT-gan BEP20 ga loo yaqaan iyadana 10 USDT ayaa ugu yar lacagaha laga baxo Bitcoin hadda rabtid ta intaas ugu yar 0.0025 BTC baa ugu yar kaynagu markasta waxaan isticmaalaynaa TRC20 ga TRC20 ga marka hore wallet-kaaga soo qaadanaysaa wallet-ka isticmaashid anigu Binance aan isticmaalaa ayaad ka soo qaadanaysaa address-kaaga TRC20 USDT kadibna halkaaga baad la imanaysaa oo waad gashanaysaa marka aynu sameeyno intaas Binance baa nimi deposit baan ku dhuftay deposit markii aan ku dhuftay waxaan ka dooranayaa coin-ka aan rabay in lacagta lagu soo diro USDT baan dooranayaa sidoo kale network ayaa dooranaysaa network aan rabo in lagu soo diraana waxa weeye TRC20 marka ku dhufto waxay soo saarayaa address-ka aan lacagta kula soo bixi karo address-kaygu waa kan waan copy garaysanayaa markaan copy garaysto waxaan kula laabanayaa halkii TRC20 ga aan rabay in aan lacagta kala soo baxo ka withdrawal baan oranayaa anigu hore ayuu u gashanaa address-kaygu waad arkaysaan haddii aad adigu rabtid in address gashatid tan oo kale tusaale kuu siinaya markaad click ku siisid TRC20 markaad click ku siisid anigu TRC20 imka address-kayga ku jira markaad click ku siisid halkan oo kale ayaad dhiganaysaa address-kaaga aad siisid anigu TRC20 kala baxaya tan tusaale kuu siinaya kadibna TRC20 ayaan ku soo laabanayaa ku dhufsanayaa waxa uu ka rabaa address-kii waan geliyay waxa uu ka rabaa financial password markii aynu iska diiwaan gelinay meeshii financial password aad ku lahaa xiftiya waa inaad password-kaaga xiftisan tahay kadibna aad gelin karto anigu kaygaan gelinayaa kaygii baan soo gashaday marka waa inuu withdrawal halka ay ku qoran tahay waa inuu ku dhufsado lacagtan withdrawal ku sameynayo ayaan ku qoranayaa halkan 37 baa ku qortay kadibna withdrawal baan sameynayaa financial password waad aragtaan inuu withdrawal-kii sameynayo successfully buu leeyahay